بسم الله الرحمن الرحيم معاميشنا شرفت له كحيران شركة دالس ريال استيت ولا ليال سو دوادا كسو دوادا قعمة فران كسو دوادا أديك هفن أو إذن رالي قليا هذا ولا ليال سيدان وقبرة تيمبا وحا مانتا مركلة إذن سو قدبينينا قري إيبه ولا ليال كسو دوادا داوشو عن كفايديسي وعن ولا ليال وحا إيبه قريقان حد إذن موغدو سرطة وانا قري ما شاء الله أو آد وين والله فربضان له دولك أو كفر ديو أيا دول وين سو كلا و قري اسكوها استلاو ودو ماش هذا أركتان والبابكي دينعان ماشي دريشدها إذا كان مغضانه ودينعي كلا هرداننا waxaa ka muuqda laami baalayaashaas korontada ay arkaysaan waa meel laami ah walaalayaal gurigan iibka ah waxa uu ku yaala meel aad iyo aad istiraatiiji ah xaafad kamid ah xaafadihii hore ee magaalada si weyn u camiran oo aragtaan xaafadan sida u dhisan tahay xaafada meesha uu ku yaalana ama uga sii yaalo guriga iibka ah waa meel aad iyo aad istiraatiiji ah laamiga hal boos oo kali ah ayaa ka xigo walaalayaal boosaska oo gurigan ku fadhiyo waa laba boos oo isku dhagan dhismaha gurigana aad iyo aad ay u fiican yahay waa guri hadii loo baahdo hore laga degi karo hore laga adeegsan karo soo dhawaada walaalayaal waxa filayaa gurigan inuu dhinacyo badan idin anfici doono ama si kale hadaa u dhigo boosaskan aad ka heli doontaan walaalayaal waxaan guda gelayaa xogta gurigan iibka ah oo dhameystiran insha Allah taala ka bogasho wacan walaalayaal hadii aan ku bilaabo meesha uu ku yaalo waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho waxa uu uga sii yaalaa degmada Hiliwaa ama Hurwaa hadba sida u taqaanid Hurwaana waxa uu uga sii yaalaa soonaha wadada walaalaha waxa uu u dhaxeeyaa xeelo bariise iyo kis control marka soo dhaaftid warshada xeelo bariise ee aad u socoto kis control ayaa waxa u leexanaysaa gacantaada midig laamigana waa uu ku muuqdaa waxa ka xigo hal dhul oo kaliya ama hal guri xaafadan walaalayaal waxa soo kala ka dhow oo u dheereen meesha guriga uu ku yaalo suuqa weyn ee Hurwaa cabirka xaafada waa cabir oo waaweyn hadii la dhaho xagga jidadka xaafada aad iyo aad ay waasac u yihiin walaalayaal waa meel deegaan maalgashi iyo kiro intaba ku fiican walaalayaal hadii aan u gudbo xagga cabirka gurigan iibka wuxuu ku fadhiyaa cabir ah 20 lagu dhuftay 30 ama finti bartarante hadba sida u taqaanid dhinaca albaabka ama wajiga oo laamiga xigto laamiga gurigaas jeengada ah ma wixii ka dambeeya waa laamiga gurigaas kale ee lameerigan waa lameeri gaduudka ah dhinaca kale ayuu waliba ka saaran yahay walaalayaal wadada laamiga galaysa waxa uu ka heystaa 20 mitir soo kale wadada dhinacana waxa uu ka heystaa 30 mitir waxa intaas sii dheer 7 mitir oo kale sida loo sheegay oo ah meesha wajiga hore ah oo 30 mitir la sii jirto oo ah fitsi sida loo sheegay dokumentiga ugu qoran balse dokumentiga marka aragtaan ayaa taas la xaqiijinayaa soo dhawaada walaalayaal waa cabir waasac ah si kale hadaa u dhigo waa laba boos marka waliba laga soo qabto kaliya 30 lagu dhufto 20 ayuu noqonayaa laba boos oo kiiba uu yahay 20 lagu dhufto 15 dhinaca 30 oo uu yahay marka la kala jaro waxa ka soo baxayo guri laba jidla ah cabirkiisu uu yahay 20 lagu dhufto 15 oo 20 wadada ka haysto jidkan kala 15 oo ka haysto iyo sidoo kale boos sugunta ah oo hal jidla ah jidka hormara ka haysto
15 متر قدان له أما بلعة 20 متر ساس أيو قرية وحكويها لابوس أو 20 لغو 15 أما عبر فينتي برترانتي لغو دري 7 متر marka laba boos laga dhigo oo finti barkuunti shakiibo uu yahay dhulkan dheeriga ah uu la sii jiraa ama markaas waxa loo kala goyn karaa hadii lagu xisaabiyo 18 mitir iyo bar ala booski oo dhinaca kalena u ah 20 mitir ama 18 mitir bar lagu dhuftay 20 mitir mid laba jidla uu yahay waliba waa marka si siman loo kala gooyo walaalayaal aan u imaado xagga qiimaha iyo lacagta lagu rabo gurigan iibka ah walaalayaal waxa lagu rabaa 120,000 oo doolarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah macal dalaal iyo heshiis walaalayaal waxa la yiraahdaa beec meesha ka bilowdo kuma dhamaado qiimaha waxa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa qiimahana si weyn ayuu ugu qalmaa waa xaraash waa fursad walaalayaal gurigan qiimo dhimis aad u weyn ayaa lagu sameeyay qofka iska leh ayaa duruufaysa oo lacag si degdeg ah ugu baahan sidaas ayaa qiimaha aad iyo aad hoos loogu dhigay soo dhawaada walaalayaal ka faa'iideysta hadii laba boos la dhaho cala booski oo kale wuxuu noqonayaa 60,000 oo doolarka Mareykanka ah kaliya oo cabir dheeri ah kula sii jiraan xaafadan waxa la gado marka loo fiiriyo waa Janis waxa intaas ku sii dheer gurigaas dhisan oo aad hore ka deey karto ama aad kirada ka sii qaada karto laba boos oo 120,000 ah oo xaafadan ah waa xaraash laamiga labaadka ah waa sugunto laamiga laba jidla hadane walaalayaal soo dhawaada hadii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxa diyaar u nahay inaan gurigan idin soo tusino hadii aad ku qanacdaan qiimaha laga heshiiyo wixii macquul ah la idinka dhimay insha Allah taala hadii aad maqantihiin dhanka WhatsApp-ka waa naga soo wici kartaan faahfaahin dheeri ah ayaa idinka siiseynaa kadibna qof wakiil ayaa soo dirsaneysaan insha Allah taala si guriga la idinkaga soo arko markaasna qiimaha ayaan ka heshiineynaa waliba si weyn ayaa la idin dhaqaalay doonaa insha Allah taala taas ayaana ku dadaaleynaa walaalayaal hadii aan u gudbo xagga qolalka iyo dhismihiisa gurigan waxa ka dhisan 14 qol musqulihii barxad waa guri aad u weyn intaas oo famil ku filan ama ganacsi iyo siyaabo kale loo kireysan karo oo looga faa'iideysan karo walaalayaal hadii aan u gudbo xagga jidadka gurigan iibka ah waxa uu leeyahay laba jid waa laba jid la sida idin sheegaba hadii aan u gudbo xagga jihada ama jihooyinka loo jeedin karo walaalayaal gurigani hadda waxa uu jeedaa dhanka waqooyi sidoo kale wada ayaa waxa ka martaa dhanka bari marka saas wuxuu ku yahay laba jidla bari ujeed iyo waqooyi ujeed ah bari ujeedkana waa kan loogu jecel yahay gurihii laga dhiso waxa loo jeedi karaa labada dhinacii la rabo hadii laba boos laga dhigane boos wuxuu noqonayaa laba jidla bari ujeed iyo waqooyi ujeed ah kan kalena wuxuu noqonayaa bari ujeed walaalayaal hadii aan u gudbo xagga dukumeentiga iyo sharciga gurigan iibka ah waxa uu leeyahay dukumeenti saxan oo dhameystiran kaas oo ah rasiid iyo safarlog original ah Maxamed Siyaad Barre ah sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka ah sida canshuuraha iyo wixii la midka ah ay u dhameystiran yihiin hadii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxa diyaar u nahay inaan dukumeentiga idin geyno nootayada aad dalbataan si la idinkaga hubiyo saxaanshaha dukumeentiga insha Allah taala walaalayaal hadii aad dhul ama guri beec ah ku leedihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir nala soo xiriira sidan oo kale ayaa idinku beec geynaynaa insha Allah taala hadii aad dhul ama guri ka rabtaan xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka Banaadir sidoo kale nala soo xiriira waa idin heleynaa insha Allah taala qaabka wax warataan ayaa noo sheegaysaan kadibna dhulkii ayaa idin diyaarinayna insha Allah taala shirkadda Dallas Real Estate astaanteeda waa hufnaan iyo qancinta macaamiisha waxa diyaar u nahay inaa si hufan oo daacadnimo ay ku jirto iyo qancin macaamiil aan idinkugu shaqeynaa insha Allah taala walaalayaal ugu dambeyntii waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka
iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal waxaan si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambaleelkan aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha Allah tacaala sidoo kalena Facebooka follow inaga soo dhaha waa mahadsantihiin mar kale wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.